kusoo dhawo Fan Academy haddaad nagu cusubtaa fadlan subscribe leh kadibna furo gambaleelka si muuqaal kasta aynu soo gelino kugu soo dhaco isla marka aynu soo gelino. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh. Ma jeclaan lahayd inaad ku barato luqadda Englishka si online ah adigoo gurigaaga ama goobtaada shaqo jooga? Haddii ay tahay jawaabtaadu haa, Akademiyadda Fahan waxay idin diyaarisay koorso dhammaystiran oo luqadda Englishka ah. Koorsadan waxay ka kooban tahay 3 level ama 3 heer. Heerka koowaad waa Basic English ee ugu talagalay ardayda bilowga ah looga bilaabi doono ABC-da ilaa iyo meel fiican laga gaarsiiyo ardayga. Waa buug ka kooban 62 casharo video ah iyo buug PDF oo qoraal ah. Sidoo kale waxaynu idin diyaarinay Spoken English oo ah heerka labaad. Spoken Englishka waxaynu ugu talagalnay ardayda heerka dhexe ama heerka sare ah. waa buug ka kooban 102 casharo video ah iyo buug PDF ah. Buuggan waxaad ku baranaysaa ku hadalka luqadda Englishka. Marxalad kasta aad ku sugan tahay wixii aad ku hadli lahayd ayaad ku baranaysaa. Sidoo kale waxaan idin diyaarinay naxwaha guud ama General English Grammar oo aad ku baran doontid naxwaha luqadda Englishka oo dhammaystiran. Haddii aad danaynaysid inaad si diiwaan geliso koorskan online-ka ah, fadlan la xiriir WhatsApp number-ka shaashada kaaga muuqdo si lagu siiyo macluumaad dheeraad ah iyo casharo tusaale ahba. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Kusoo dhawaada Fan Academy. Magacaygu waa Axmed Cabdiqaadir Xuseen. Cashirkan ciwaankiisu waa Daily Used English Sentences A to Z Part 3. Cashirkan waxaynu ku baran doonaa Daily Used English Sentences, jumladaha Ingiriisiga ee sida maalinlaha ama joogtada loo isticmaalo A to Z. Part 3 waa qaybtii saddexaad ee English sentenceska weliba A to Z-ka ah ee qaybtii saddexaad ee ka bogasho wacan. My grandmother passed away last year. My grandmother passed away last year. My house is close to the bank. My house is close to the bank. My luggage is missing. My luggage is missing. My grandmother ayeeyaday passed away waxay dhimatay last year sanadkii hore. My grandmother passed away ayeeyadu waxay geeriyootay last year sanadkii hore. My house is close to the bank. My house gurigaygu is close to wuxuu u dhow yahay the bank bangiga. My luggage is missing. Shandadaydu way maqan tahay ama boorsadaydu way maqan tahay. My luggage is missing. The bridge is under construction. My son studies computer. Nobody is helping us. The bridge-ka ama buundada is under construction. Dhismo ayaa ku socda. The bridge is under construction. Buundada ama bridge-ka dhismo ayaa ku socda. My son studies computer. My son wiilkayga studies wuxuu bartaa computerka. Nobody is helping us. Cidna caawinayso ma jirto. Nobody is helping us. Cidna inama caawinayso. The bridge is under construction and bridge-ka ama buundada dhismo ayaa ku socda. My son studies computer. Wiilkayga wuxuu dhigtaa computer. Nobody is helping us. Cidna caawinayso ma jirto. Nobody is there right now. Please take me to the airport. Please take off your shoes. Nobody is there right now. Cid joogto halkaas hadda ma jirto. Cid ma joogto iminka xaggaas. Please take me to the airport. Fadlan ii kaxee madaarka ama airportka. Please take me to the airport. Fadlan ii kaxee madaarka. Please take off your shoes. Fadlan iska saar kabahaada. Please take off iska siib your shoes kabahaada. She wants to know when you are coming. Tell him that I need to talk to him. The car over there is mine. She wants waxay doonaysaa to know inay ogaato when you are coming xilligaad imaanayso. She wants waxay doonaysaa to know when you're coming. She wants to know you when you're coming. Waxay doonaysaa inay ogaato xilligaad imaanayso.
Tell him that I need to talk to him. U sheeg isaga inaan u baahanahay inaan la hadlo isaga. Tell him u sheeg isaga that I need inaan u baahanahay to talk to him inaan la hadlo isaga. The car over there is mine. Gaariga halkaasi yaalo aniga iskale. The car over there is mine. Gaariga halkaa yaalo aniga iskale. The accident happened at the intersection. The accident happened at the intersection. The plane departs at 5:30 p.m. The roads are slippery. The roads are slippery. The accident happened. Shilku wuxuu dhacay uma ka dhacay at the intersection isgoyska. The accident happened. Shilka wuxuu ka dhacay at the intersection isgoyska. The plane departs. Diyuuradu waxay tagaysaa at 5:30 shantii barka. The roads are slippery. Waddooyinku waa kuwo taraarax ama simbirraxasho ah lagu kufayo. What are you two talking about? What are you two talking about? Who are you looking for? Who are you looking for? Who told you? Who told you? What are you two talking about? Labadiinan maxaad ka hadlaysaan? What are you two talking about? Labadiina maxaad ka hadlaysaan? Who are you looking for? Yaad raadinaysaa? Kumaad raadinaysaa? Who are you looking for? Kuma ayaad raadinaysaa? Who told you? Yaa ku baray? Kuma ku baray? Who told you? Yaa ku baray? What are you two talking about? Labadiina maxaad ka hadlaysaan? Who are you looking for? Kumaad raadinaysaa? Who told you? Yaa ku baray ama kuma ku baray? You children are very well behaved. I'm a fan of AC Milan. He's the best player of the world. You children, carruurtaadu are very well behaved. Waa kuwa dhaqan wanaagsan ama dabeecad wanaagsan. I'm a fan of AC Milan. Aniga waxaan taageero u ahay kooxda AC Milan. He's the best player of the world. Isagu waa ciyaaryahanka ugu wanaagsan caalamka. Your children are very well behaved. Carruurtaadu waa kuwa dhaqan wanaagsan. I'm a fan of AC Milan. Aniga waxaan taageero u ahay kooxda AC Milan. He's the best player of the world. Isagu waa ciyaaryahanka ugu wanaagsan dunida. You are wasting my time. Do you know what I mean? Don't move. You're wasting my time. Waxaad khasaarinaysaa my time waqtigeyga. You're wasting my time. Waxaad khasaarinaysaa my time waqtigeyga. Do you know what I mean? Ma garanaysaa waxaan ka wado ama waxaan ula jeedo? Do you know what I mean? Ma garanaysaa waxaan ula jeedo ama aan ka wado? Don't move. Hadha dhaqaaqin. Don't move. Ha dhaqaaqin. When is the train leaving? I'm sorry, I can't help you. Where did you see him? When is the train leaving? Goormuu baxayaa ama tagayaa trainku? I'm sorry, I can't help you. Waan ka xumahay, kuma caawin karo, kuma saacidi karo. Where did you see him? Xagee ku aragtay isaga? Where did you see him? Xagee ku aragtay isaga?